akhyaartiina daawanaysa dhammaanba sidaad u wada dhantihiin waxaanu maanta aanu martiinoo ah stuudiyahayaga ihoya.com engineer maxamed saalax oo kamid ah dhalinta ama dadweynaha ayagoo ku dhaqan magaalada Columbus oo ay gaar ahaan dadka ayagoo dalka gudihiisa wax ku soo bartay isla markaana ku sii dhameystay waliba aan isleeyahay dalka Mareykanka iyo dunida kale kulli asaga ayaa inoo sharaxi doona marka waxaan jecelnahay inaan dhowr su'aalood aan ka weydiino iyadoo maanta uu martiinoo yahay stuudiyahayaga ihoya.com engineer maxamed ku soo dhawo markuu waraysto stuudiyahayaga waata engineer maxamed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dalka gudihiisa kulli saad la socota saxaafada caalamka iyo kuwa iyaga isku soo wada dubi dunida inteeda kaleba waxa bariyahan la dhageysanaya ama loo dhagataagay doorashadii ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya magaalada Djibouti caasimadiisa Djibouti doorashadaas oo baarlamaanka labadii baarlamaan ku mucaaradka iyo kuwa kale dawladda ku meel gaarka la isku wada daray kuwaas oo tiradooda markii ugu dambeysay la 550 ayay mareysay kuwaas oo markaasi ay noqotay inay markaas ay soo doortaan madaxweyne oo tartankii loo galay dhowr ilaa iyo 16 qof in ku siman markaas madaxweynenimada isu soo taageen bal aragtida ugu gunaanadkiina ay noqotay inuu markaas ku guuleysto Sheekh Shariif Sheekh Ahmed bal aragtida adigu aad ka qabto maadaama aad ka mid tahay dadweynaha ay ku dhagan magaalada Columbus isla markaana aqoonyahanada Soomaaliyeed ee cariga Mareykanka ay ku nool sidee baad u aragtay doorashada Sheekh Shariif Sheekh Ahmed bal maxaad ku oran lahayd bismillahir rahmanir rahim Abdunur waad maasantahay waana su'aal meesha taalo anigu shakhsiyan la fahanteedu doorashadu waa ula socday si live ah dadka siyaasadda Soomaaliya u dhundulana waan kamid ahaa doorashadu waxay u dhacday aragti ahaan anigu sidaan qabo mid dimuqraasiyad ay ku dheehan tahay oo cidda kale aysan ku eedayn karin waxa ka soo qayb galayna waxay ahaayeen mucaaradkii iyo TFG-gii dawladda ahayd si wanaagsan bay u dhacday oo is-afgarasho ah halkaana waan joogay waa si live baan u daabanay waa taa hore kugu sheegay waxaana lagu doortay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweyne oo ay doorteen tiro ku dhawaan 300 xildhibaan aragtida marka anigu aan ka qabo shakhsiyan iyo Soomaalidu inta kaleba anigu marka la leeyahay Soomaali waa la badan yahay inta wax garadka ah oo u arkayso dhanka wanaagsan waxaan qabaa inuu yahay doorashada sida ay ku soo baxday inay ahayd mid sax ah Sheekh Shariifna uu noqon doono ninka Soomaaliya madaxweynaha uu hogaamin doono kaalinta xilka loo dhiibayna uu noqon doono mid gudin doono insha Allah waata engineer Maxamed bal waxaan jeclahay inaan ciidan ku weydiiyo waxa jirta in dalka caqabado fara badan ay jiraan ee marxaladda hortaalana Sheekh Shariif ay aad iyo aad moodinay aad iyo aad u adag tahay taayada maxaad ka leedahay horta xilka madaxweynuhu waa shaqsiguna waan garan karnaa kaalinta uu ka qaadan karayo arintoo dhan waxay u taallaa Soomaaliya dadka Soomaaliyeed bayna hortaallaa iyaga ayaana samaysan karo Sheekh Shariif wax uu ka bedeli karaa laakiin taa waxa weeyaan inaanu maskaxdeena ku haynin inuu yahay shakhsi inta ugu badanna Soomaalidu iyada wax ka qaban karto markaan waxaan aaminsanahay Soomaalidu hadday iyagu isu yimaadaan danahoodu ay ka shaqeeyaan oo ay meel isla dhigaan inay arintu sidaa iska bedelayso engineer Maxamed waxaan jeclahay inaan mar labaad ku weydiiyo maadaama aad tiri Sheekh Shariif waa ninka kaliya ee siyaasadda maanta jirta wax ka bedelaya Sheekh Shariif waxa la oran karaa dhowr arrimood oo la taaban karo oo dadku ka dhagsan yahay ayaa jira marka soo qaato waxa kamid ah wadamada dariska ah gaar ahaan geeska Afrika waa la socotaa si gaar ah markaan ku ogaanay dawladda Ethiopia oo shacabka Soomaaliyeed ay muddo ay ku noqotay mid mar walba ay faraha wadnuhu kaga haystaan waxa kaloo jira in madaqada geeska Afrika nafsadeeda hadda waxaan qabaa inay hadii ay noqoto mid Sheekh Shariif xaaladeeda dalka Soomaaliya wax ka bedeli kara ama sidee bay adiga kula tahay iyo waliba kooxaha al-shabaab oo waliba dalka intiisa badan faraha ku haya bar labada arrimood ka waran aragtidaas ay kula tahay horta waa dhowr arrimood oo meesha isugu yimid waa marka ugu horeysa arrimaha wax ka qabashada dawladaha dariska ah Soomaaliya sida Ethiopia cidna kama qarsoona Ethiopia inay faragelin ku hayso wadanka oo waa wada ognahay arrinta laakiin halku waxa uu yahay sidee arrintaasi loo xalin karaa iyadoo aan dhibku intaa ka sii fogaan waxaan anigu maqlay oo aan idaacadaha ka dhageystay in Sheekh Shariif talaabada ugu horeysa uu qaadi doono ay tahay inuu soo dhaweeyo wadamada dariska ah xiriirka uu la leeyahay arrinta waxaan u arkaa waa mid diblomaasiyadeed mid ku habboon oo la rabay
waqtiga maanta la jooga waqti ka hore in talaabada la qaado waa samahad haddii sheekh shariif uu gartay maanta madaxweynaha waddanka inuu talaabada qaado isagoo uga jeeda bal xalkii loo maray lahaa Soomaaliya sidii dib loogu soo celin lahaa arrinta kaleenta oo aad daba dhigtay oo ahayd al-shabaab waa runta way jiraan gurubyo badan baan maqlaayay oo al-shabaab iyo kuwa kale ahlu sunna wal jamaa iyo kuwa badan oo iyagu iyo kuwa soo socdaba inta way imaanayaan macno weyn kuma fadhiso al-shabaab iyo gurubyo kale oo abuurmo laakiin anigu waxaan qabaa haddii guntu ay tahay in la isu yimaado oo la wada hadlo waliba anigu waxaan aaminsanahay sheekh shariif inuu yahay ninka raba inuu wax walba ku xaliyo wada hadal Soomaalida oo dhan waxaan raadinaynay in badanba marka mar haddii madaxweyne sheekh shariif laga dhigay waxaan qabaa inuu arrinta cid kastoo wax sheeganayso ama cid kastoo daleynayso arrimaha Soomaaliya inuu kala hadli doono wada hadalkana uu furan yahay anigu kulay sidaanu ogahay aan idaacadaha ka maqlay inuu sheekh shariif yahay nin ugu horumarsan arrinta diyaarna u ah cid kasta inuu kala hadlo arrimaha Soomaaliya